بسم الله maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomiyay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaaday wadanka Soomaaliya Ambassador Yamamoto wafdiga la socday safiirka iyo madaxweynahana wada hadal ayay yeesheen fara badan oo ay ka wada hadleen xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeya labada wadan Soomaaliya iyo Ameerika iyo Soomaaliya bariisamaadkii sidii la soo ahaan jiray kadib dowladda Mareykankana waxay cabirtay muhiimadda ay u leedahay inay xiriirka Soomaaliya soo celiso ay u soo magacaaday ambassador aad u yaqaan regionkan muddo dheerna ka soo shaqeeyay oo hoygiisana uu ahaan doono xamar waxaa kaloo la socday safiirka madaxa hay'adda USAID oo hay'adda kaalmada ee dowladda Mareykanka oo asagana markii ugu horeysay 30 sano xamar u noqon doona saldhig sidaad ogtihiin dowladda Mareykanka waxay qayb ka qaadataa sugidda amniga wadanka laga taageerto xagga amniga waxay kaloo dowladda siisaa taageero dhaqaale iyo taageero mashaariic la fulin doona oo ay ka mid tahay xagga waxbarashada xagga dowlad wanaagga doorashooyinka iyo in la abuuro shaqooyin loo abuuro dhalinyarada waxaasoo dhan loogu talagalay waxay kale bogaadiyeen horumarka Soomaaliya ay samaysay ka samaysay xagga nabadda gobolka Geeska Afrika siyaasadda arrimaha dibadda dib u soo noqoshada dowladnimada Soomaaliya iyo horusocodka weyn oo lagu talagalay dhinaca dhaqaalaha aan ka sameynay iyo kabashada deyn cafiska aan ku soconno iyo in Soomaaliya ay hadda la dagaalanka ay muujisay xagga arrimaha musuqmaasuqa iyo dowlad wanaagga Soomaaliya ay samaysay